سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo midda gaar ahaaneed ba naxariista. إنا أعطيناك الكوثر. waxaan ku siinay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayr badan al-Kawthar. فصل لربك وانحر. ee u tukan rabbiga dartii waxna u gowrac. إن شانئك هو الأبتر. ruuxii ku calaysta waa mid gablan ah oo cirib beelay. suuratul kawthar waa makiyah waxayna ka kooban tahay 3 aayadood waana suuradda 108 ee tartiibta quraan kariimka. suuratul kawthar wuxuu Allah azza wa jalla ku cadeeyay inuu nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam siiyay khayr badan. al-kawthar waa wabi jannada ku yaala oo ay biyihiisu ka macaan yihiin malabka kana cad yihiin caanaha kana udgoon yihiin baraafuunka miskiga. الله سبحانه وتعالى وحو أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه الله كشكريو صلاة ربنا درتي وتكدو قورع على درتي وقورعه. سورة الكوثر الله جل جلاله وحو كعدي إنه قبلا يا عربال أسقنا لعد كستوع ليس رسولك صلى الله عليه وسلم يا دين تيسا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.